ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay deegaankan la wareegeen 30kii bishii 7aad ee 2019 11kii bishii 8aad 2019 waxay halkaan argagixisadu ay ku soo qaadeen weerar ay isku dayayeen inay mar labaad ay dib ay gacantooda u gasho degmada Owdheegle oo ku bilowday baabuur qaraxyo aheed oo laba aheeday xaqiiqatan ka waxay kala kulmeen jab aad u fool xuma marka labaad ay haddana ku soo laabteen waa 3 Abriil 2021 isla sidaas oo kale haddana waxay kala kulmeen jab ayadana aysan hilmaami doonin haddii dabcan aqliyadoodu shaqaynaysana tusi doona inay iska daayaanba waxa ay ku jiraan way faraha kala baxaan ma doonayo inaan ku laabto mudan ra'iisul wasaare barista saraakiisha iyo saraakiil xigeynta iyo alifleyda dableyda halkan fadhiya laakiin xaqiiqatan ka ciidamada halkan ku sugan iyo meelo badan oo jiidaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan yahay kamiduhu waxay ku jiraan halgan ay kula dagaalamayaan nimanka cadawga ah kuna xaqiijinayaan amniga dalka waxaan aaminsanahay xaqiiqatan ka ciidanka halkan ku sugan ee argagixisada ay weerar ku soo qaadeen 3 bishan waxay xaqiiqatan ka kala kulmeen wax aysan guud ahaan dalkan ama kuwa ajaanibta ha noqdaano ama nuucay doonaanba ha noqdaane ciidamada kala duwan oo ku sugan dalkan aysan kala kulmeen ay kala kulmeen waxay kala kulmeen jab waxay kala kulmeen xaqiiqatan ka wixii ciidanka halkan fadhiya loo soo carbiyay kala kulmeen farxad weyn ayay noo tahay markaan taa inta uga gudbo maantay oo ay ku beegantaa 12kii Abriil ee sanad guuradii 61aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaad noogu timaado adiga iyo wasiiradaadii iyo wasiirkii gaashaandhigga jiidda hore ee ciidamadan ay ku sugan yihiin ana noogu timaado xaqiiqatan ka waxay noo tahay farxad gaar ah waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay hawshii aan wadnay in aan hore ugu sii dhaqaaqno ayay runtii ayay noo tilmaamaysaa waan sii wadi doonaa idanka Ilaahay waa u dhaaranay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan gobol kasta iyo geed kasto ay joogaanna waxay u diyaarsan yihiin ilaa ay xaqiijinayaan nimanka nabadiidka ah inay ummadda Soomaaliyeed ka dul qaadaan inay la dagaalamaan kana saaraan aba ay ka soo waantoobayaan xaqiiqatan fikrada qalafsan oo ku jira excellency waxyaabaha kale dabcan gaaran uga wada hadli doona hadii Ilaahay yiraahdo guud ahaan qof kasto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo ka faa'iideysanaya wasiiradeena caafimaadka maanta maadaama ay nala joogto xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan baahida kuugu daran maxay tahay maanta hadaa tira waxaan u maleynaa inaysan ka qaldamin waa caafimaadka waxa ugu horeeyo aqligiisa ku soo dhacayo qof kasta oo xoogga dalka Soomaaliyeed xubinka ah hadii la weydiiyo maxay tahay baahida maanta kuugu daran culayska kuugu weyn hadii la yiraahdo isbitaalka ciidanka xoogga ku leeyahay waxaan marka hortaada ka codsanayaa iyadoo munaasabadii 12 Abriil nagu beegan aadna runtii muxuu ahay ii sheeg muxuu ahay muhiim noogu ah runtii aragtidaada iyo booqashadaada maanta halkaana wasaaraddeena caafimaadka iyo guud ahaan madaxdeena qarankuba inay noogu soo jeestaan dhismaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed